السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وروى سلام يا بلشديدي قالقا هاي بانو سلام يا مانتا جوجيق وهوسيس حد بانو ساوغو جيرا ضرورتو إنay da'do bay u dhowdahay inay da'do wasaa soo shubto wixii ilaahay dul dhigay iska soo dayso daacdo wadi salaamaya aad iyo aad baan idin salaamaya waad ogeydeen dee second world war ka bilaabmay Somaliland dumar iyo rag horta waxaan ka hambalyeynaya habla hadlay oo ka hadlay jaamacadda barwaaqo ka qalin jabiyay sanadkan oo kuwii madaxweynuhu ka dhex khudbadeeyay ahaa runtii oo khudbadooda aan aaminsanahay inaad moodoba inayba u khudbadeynayeen inay guriga cadda Mareykanka dhex khudbadeynayeen khudbad ay ku dheehnayd deganaansho intellect education xishood akhlaaq intuba ay ku dheehnayd oo maanta qof kasta oo wax garadii aanu jawaab ka daba oran karin ayaa hablahaas jeediyeen inta raggu habar yar meelaha la warwareegayo waa habarti maxay ahayd magaceedii wuxuu magaceedii la garan maaye waa kootaliyad horta dadka Soomaalida wadad iska boqolkiiba waxaynu nahay 80 dad jaahila laakiin waxa iskaga keen khaldan laba waxa dhaqankii iyo diintii iskaga keen galay wadamadan aanu joogno waxa wax ka dhigaa wali caruur Soomaaliyeed ama caruur Carab ama caruur Muslina ma garanayo especially Soomaali baa gaalowday lama maqal ilaa neesariga gaal la dhiganayeen ilaa ay neesariga markay bilaabayeen gaal la dhiganayeen way ilmahaas ugu gaaloobena ma jirto ilmuhu tarbiyad buu leeyahay dhaqan buu leeyahay meel buu ka yimi reer buu ka soo toosan sub marka iskuulka laga keeno malcaamad baa la geeyaa xiisad baa ku jirta kristana ama xiisad diintooda ah ku jirta cidima dhigato way iska baxaan dad doonto free baa tahay waxa dhiga axad kasta kaniisadda tagaan way ka khudbadeeyaan iskuulkana way dhigaan idinkii ku dhashay ee ku anqaray muslim ee wadankoodii joogay ee ku koray ayaa waxa aaminsantiin in diintiini la idinka saarayo maxay idinka tahay markaa maxay idinka tahay ma arko inay idinka tahay aqoon xumo markaan eegay aqoon xumo ma aha boqolkiiba 80 laakiin waa iska nooc min jaahilnimo qofku ma odhanayo qofkan muxuu ahaa muxuu sameyn karaa maxaanu sameyn karin wadanka markuu yimi waraaq buu ku yimi sayn buu ku yimi dawlad baa meesha ku og qof kasto cadaan wadankiina wax wada xariglay ma la iska soo galaa ila wadan kasta wuxuu leeyahay fiisa lagu yimaadaa waxa uu dhigayo qofku dawladdu waa la socotaa way og tahay macalinka la keenayo fiisaha iyaga bixiya ma wadan waxa joogtaan idinku free ah wax wala free yihiin kuwa gaalada free ma hadii marka hablaha horta waan hambalyeynaya si maskaxi ku jirtaa way hadleen waana idin qanciyaan baan u malayay reer Somaliland dadkii meelahan ka qaawleh ee Somaliland caybkii awalba ay u qabeen dibadda uga soo baxday Kristan Somaliland baa la qaadanaya dhaqan xumo qofna wadankiisa gobolkiisa ma oga waxa ka dhex socda laakiin maskaxda dadka waxay ku jirtaa Somaliland xumaanteeda in la baahiyo inana aynu sii buunbuunino Somaliland ilaahay baa wata ilaahay baa ilaashanaya dawlad iyo waxay leedahay madaxweyne waxay leedahay wasiiro waa dawlad dhisan ilaa iyo qofka ugu hooseeya waa dawlad dhisan waa dawlad aan la mari karin boqolkiiba 80 dadka Soomaaliland waa CID waxa ka dhacay magaalada dhexdeeda way og yihiin lama waayin lamana garan waayin iskuulkan wuxuu dhigo lamana waayin laakiin xaasidku
markuu qofku dadku xaasid yihiin ee ay u quuli laayihiin waxbarashadiisa ama ay u quuli laayihiin hablahaba waxaa laga yaabaa anigu horta ma ogeyn bay habla dhigtaan anigu rag iyo dumar baan moodayay laakiin markii aan ogaanay inay hablo qulaba yihiin oo jaamacaddu habla tahay waxaan fakeray ragba waxay diideen habla inay educate ay ka soo baxaan waddanka oo ay ku moolmo ka waxbarasho badan inay ka soo baxaan oo marka 5,000 oo hablood ama 2,000 oo hablood ama 1,000 hablood ay sanad kasta soo qalin jabiso waxay isyahay waddanka waa lidin kala wareegaya aqoon baa lidin kala wareegaya marka ragga Soomaaliyeed weligoodna habla waa cidhiidhi jirteen weligood nin Soomaaliya oo oranaya inanteeda wax barasho la doonaya ma jirto laakiin nin Soomaaliya waa ka soconaya inan baa la hagaajisay haddana reerku inan lahayn hadda marka laga hadlayo dadka dhoofa haddana reerka inan u dhoofin waa rogmaday reerka inan u dhoofin way baad u leedahay marka leedahay baryay sidee dinanta weydiisanaysaanba waa ogashiine way waxbarashada ugu diideen heer ku noqoto waxa ugu diideen inanta ma sheegi kartaa waay Soomaaliland lafteeda hablaha wax bartay ee reerkooda soo xamaala gurigooda uun bay keentaa ilaa inta laga guursanayo halka inuu ku qaadiyo balwad iyo qurniyo qashaabiru la qabanayo doono war hablaha mar ha oranina waa habla ilaahu ninkii inan lahaaba ha oranina marna ha oranina na fadhiisto guriga jooga hadaan guriga joogna yaa wax idin siin lahaa aga xagee leeydeen xagee nin wala markuu laba casho wax diro ayuu yiraahdaa waan daalay anagu xadir karimayno qaxar ba habluhu laakiin weligood bay yahdaan deyn iyo dakala waa leedin soo dira waa leedin ku hayaan meesha haddana waxa leedahay habliya wax baran oo dhaqaaqin oo tagin bad leedihiin bal xagee bay isaga imanayaan labadaas inaan wax barashadii diidaan oo horumarkii noo diidaan iyo inaad taahdaan nawada oo reerkayna ha wado iyagoo guursaday ayay raggooda waxay ku kala tagaan reerkooda oo aan mas'uulba ka ahayn iska daa markay inanta tahay iska daa markay carmalka tahay marka la guursado ayaanay inantu ka fara bixin reerkooda oo saa loo xaganaya oo ay ninkeeda isku dilayaan qurbaha 80% waxa reerka isku dira waxa isku dira rag iyo naag halka jooga waa faamiliyada Soomaaliya jooga ayaa isku dira markay ina reerkeedu u calaashay reerkeedu u calaa labadii reer bay isku soo baxsadaan ayay isdilaan muraar dilaac ku kala tagaan marka ragga Soomaaliyeed laba kala daayay habluhu hana caawiyeen iyo habluhu waxba ay baranin anigu ma arko dad la dhaqan xumeeyay ma arko laakiin waxa arka hablo wax bartay hablo akhlaaq leh hadalkooda kaliya wallahi inaan wasiiradii noo hadlisay oo hadlayaan wallahi waxa ka muuqata edeb waxa ka muuqata wax barasho waxa ka muuqata hablaha inay yihiin dad xishood runteed waxay tiri 20 jir baan heesay ariga diinta xagga goormaan diinta ka bixi karaa ma ilma yarba kuwa halkan ku dhashaan laga kaxayn karin diintooda cidina dhaafi karin halkan kuwa ku dhashay ee gaala la jooga ee gaala arkaya ee 24 xudhigayso annagu 8 saacadood bay naga maqan yihiin waxaan aragnaa wax aad u yar carruurta halka joogta cidina ma gaalowdo qofkii isagu gaal doonaya uu doonaya hadaa dhoof ugu waalateen inaad ku gaalowdaan dhoof oo ila ahaw maanta gaalada aad sheegaysaan yaa markab soo dhex taaga Hargeysa iyo Berbera ila aw yaa soo dhex taaga wallahi inaad idinkoo aan xitaa macawso idin xidhnayn inaad ku yaaci lahaydeen dumarkana tuuri lahaydeen Mareykan baa loo socdaa ayaa idin yiraahdaa ama Yurub sida jorda u tiraahdeen waragow khiyaaliga aad dumarka ku haysaan joojiya khiyaaligan iyo waxaan maskaxdan iyo waxaan aan jirin ee aad in madaxyar ka sheekaynaysaan ka joojiya dhaqankan wadanku waxa muddo wadan xidhan inuu yahay oo aanu qofna doonayn in dhinaciisa la soo taabto oo qof walba meel ku xidhay wadankan dadkan ku xidhay waa dadku mid xidhan yihiin oo baba rabaanba haday wax yar oo kor ka yimaado arkaanba waa inay qayliyaan wax yar ilantii banaan soo cunayseen u dajiseen wadaad iyo mid kaleba huriyaago xitaa aanay ahayn wax weyn iskuulkii waa taasiba hadday bilaabaysaa tiyo hablihii hayaay hablihii waa kuwan war xishooda inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun oo in madaxayaal dhaqanka iska daayo oo dalkan Soomaaliland cadow buu yeeshay isaga ka abuurmay ma aha cadow meel kale kaga yimi waa lagu soo laguma soo duulin aduu ka dhex bilaabmay kaagii baa cadow kugu ah oo mana wadanka waxa la doonaysan qax mana waxa la doonaysan dagaal jicilidina dad ba horta maanta farxi lahaaba hadii loo Soomaaliland dagaal ka dhacay farxi lahaa
والله بقى وأنا قاعد إيه مكيجي قاعدني إن ما ذا ريال أنت اللي بعتيسنا الصومال إلى هي كقاضو ولا هي اللي بعتلها كقاضو وان هبين والبا ندعين إن الصومال إلى هي اللي بكقاضو لكن دبك إذن كعوتها واللي برجع وتها واللي برجع إذن كدبك وضع إيه شو شيء دبك وحيستيل يا وايدنك وحقحنا يا وايدنك وحد دمرك أنت فرع عروسك كعريات ناقبل فريا لا يا وان كفريا محكمتي وقيني بل هذا محكمتي هنو ناق مكفريا وحولنا يا ناق توان فري هي عرورتانا هدي أنا مرين إيا مشروف تون يقدونين ها هيستو هدي كلا أنا هيسيسو مرين إيا مصروف تون يقدون وهايو ما تعلي المهد ونسلعوه وحولنا سوا كي مرين إيا مصروف تون كلا أنا هيسانا يا مركاساني أوراني بل يا ترى كوا ما أنت سومال لنين شوكته إيه إسكادي يا نين إيه سياسة كهالية إيه مال عرية إيه عروضي سكوت يا عم تبرعي هرجسيو بربريو سنة نحدوده إيه إسكادي يا نين كفي عن إيه ولا أنت رك صهر فريسوني ها هبل بان هايو فيه هبل بان هايو والله أنا وحنا عجيب عروضي سنة قاتشة وبخسيس اللي قد ويريو مال ناقتنا كفراي إيه مساق قيل يا وربا وهايمبا هبين كينا سيد دندوبا كدول غوريغا meelaha subaxina ka jarmaada hal is xisaabiyo oo raggu dumarku doodooda way idin la doodayaane iska celiya dooda oo inamada yarana hadda soo kacaya maskaxda ka dhaamaj kareynina waayo horta waa iska day wax la yiraahdo awrka dambe hore socodkiisa leeyahay kale kuwa yarana idinka uma raacayaan laakiin waxaan u sheegay dhalinyarada Soomaaliland joogta ama dhalinyarada Soomaaliyeedba meel uu joogo baa doonaa joogay inaanu ku dayan lodadkii hore ee tagay lodadkii tagay inaanu ku dayan runtii dadkii tagay way tageen dadkaas siyaad baraa habla u furay waxbarasho oo ogolaaday wadikii diidi jiray maalin inaan ka sheekeynaysay waxaan u maleeyaa amina waris bay inaan ka sheekeynaysay bariga iskuulka dhigan jiray waa nagu shidi jiray waa naloo diiday waa nala caay balaa nagu sameyn jiray bay waay loogu sameynaya dumarku yaana tagin de waa dhaqan ma haddiin dumarku yaana wax bartaan diintu ma diidin de ee waa dhaqankiina naagtooda wax barato ha way ka horeynaysaa ilaahay wuxuu maskaxda idinkaga soo riday ragow oo maskaxdiina aan laga saari karaynin naagtuba hadday ka wax barasho badan tahay way ku abayuusaysaa waay how many naago educate wax baratay oo gurigeedii reerkeeda sida naag u haysta buuxa how waxaydna idinku qaribin maba qaribmaan bay maadariyaa marka joojiya alaacalka joojiya ceebaynta joojiya isku lacayga joojiya hablacayga ka kaca oo nala tartama hablii week up bay noqdeen dumarow dhageysta dumarow idinku idinka isu cadow horta moogtiin habla ay soo sharaxay 5 hablood mise 6 hablood bay ahaayeen uguma idin dhoof uguma idin xildhibaanadii uguma idin ridin waxa wadanka codayaana waa idinka ilaa aan ragga meel iska saartaan oo codka u diidaan na weligiin gumaysiga ka bixi maysaan ooya adoo ooya afar kugu gaajoonayso ayuu midna adeerkay kooniya kaalin adeerayo codeeb ka salsa qaarna bilis qaaruntiisa ila adeerka tala markuu ka codka ka qaatay ka tago kuma yaqaanba afartaan iyadu walaad ugu gaajoonay kii ka dhalayna kaga tag hadoo naag badakaysa idin hadlayso markaas afka goosanaysan naag wallahi waa kan naagaha wax ka liitaba ma jiraanba waa ka ab oo hablihiina yarare aad moofada ku koriseen ee moofada ibil kaga bixisaan ee taayayada u iibisaan ee habar walba u soo silcido ku iibiso ee la idinku dul caayo iska celiya oo ragga iska celiya ma aha inaad gurigaaga dumiso ma aha gabadha gurigeeda dumiso ma aha inay reerkeeda baabiso ma aha gabadha reer wanaagsan nin wanaagsan ay wayna ilaashto gurigeeda reerkeeda carruurteeda waayo carruurtu waxay edeb iyo wanaag ku leedahay hooyada iyo aabuhu markay is haystaan ee aabuhu carruurtiisa og yahay aabaha wanaagsan carruurtiisa ma xumaato carruurtiisa aabaha wanaagsan waayo wuu la sheekaysanayaa wuu imanayaa wuu la joogayaa waxbuu u sheegayaa aabuhu markuu wanaagsan yahay carruurtu ma ka xumaato waa lagu xisaab aaba guriga imanaya fiidku imanaya wuu joogaabe waa lagu yaacay guriga waa la baqaya laakiin aaba koob toog habeenimo imanaya isagoo kii yara ka soo daalay suuqii oo dhacay ayaa adna timi maxaad ka ogtahay waxba kama ogi hooyadana sagaal khiyaanaa lagu dhufanaya xagga horteeda gidaarkay ka dhacaan markay doonaan halkan daaqadahay ka daataan annaga daaqadaha
daalmo kala soo xidha tagi maysahayo aan halka gashano furaha ayaa guriga uu iska gaqay daaqadu iska laliyo balkoon ka dhaco waaba ka sii booda mooji meel maray ila waa ilma yar hadhow subaxi bad waayaysaa baan ayaa kiimiyay ma joogo allah goormuu tagay suuliyo goormuu tagay aan u leenahay baan ama daaqada u taagantay tag warsaahayo telefoonada lagama qabto ila aabe laga baqayaa ma jooge aabihi uu ka baqi lahaa ma joogo hadhow waxa ma ku war helaa birina waa xiran yahay aynu ku war helaa marka reer aan odaygu baabi'in oo odayga ka xumaani ma xumaado reerka odayga ayaa u mas'uul ah ilaahay isagu mas'uul ka dhiga haddaad adigu hagaaji weydo dee anigu itaalkayga girifleeya laakiin ma soconayso markaa tiini gabteen ee aanu anagu isna iska qaata boorka oo jafta oo wixii xamaash oo wixii xumaanaya xumaadaan wixii wanaagsanna soo saara ayaa haddana tidhaahdeen hayaay waxbay dhigteena iskuul habla lagu xiray boodhan haa oo waayo wagaalo sanawaayo baadariyad sawirray soo kula sawirra kala wabayaa bilaaya tihiin jin ah wallaahi jin baa tihiin sawir baa ka soo qaadaya bal intaad sawirrada baadhaysid bal intaad qofkan xumaantiisa baadhaysid bal intaad wax raadinaysid taada ma xisaabisay ma isxisaabisay oo ma tidhi where I am maxaan ahay xaggaan joogaa maxaa iga maqan qofna isagoo isma xisaabin qofaan isagoo isxisaabin ayaa wuxuu doonaya inuu qof kale xisaabiyo aynu inagu horta isxisaabin naf waliba taada ka bilow waxaad tidhaahdaa acuudu billahi min shaytaani rajiim bismi llahi raxmaani raxiim maxaa kaa maqan maxaad qabsatay maxaad yeeshay maxaad samaysay laakiin inaynu ku mashquulo qof kale horta weliba idinku too much mashquul baaba tihiinba waxaa laydin daba dhigay ila bir camal baa tihiini dadku markuu camal haysto ma xasuusto waxaan qofba qof ka shaqo badan ma xasuusto waxaan kumana jiro laakiin dadkiinan bilaa shaqa tihiin dabeedna waxa idin dhigay gabadh baa halkaa martay mid baa isqaawisay mid baa ku dhuustay mid baa halkaa martay mid baa kan kale mid kale anigu waan yaaba waan fajacay oo waxaan ragayga maxaa ka khaldan maxabadii baa wuxuu dhintay dadka ma dagaalka wax idin dhiman horta dadka ma dagaalka wax u dhiman anigu duulada waxaanu ka nimi iyadoo basar iyo maamuus leh caruur tahay odagii gurigiisa joogo wixii ilaahay siiyay xalaalana uu cuno hadduu ari yar leeyahay arigiisa yar marba neef ka iibsado hadduu maal leeyahay dukaan yar leeyahay dukaankiisa caruurta ku biisho hadduu meel waardeeg hadduu dhagax jabiyo dhagaxiisa wax ku biisho oo qof wale waxa isaga soo galo uu ku fikiro ayaanu wadan ka nimid laakiin hadda waxa jooga waxaan ugu tagay dad ku fikiraya hebel jeebkiisa ku jira qof kale ayba ku fikirayaanba maanta kii hebel waayna waxay ku wadegayaanba oo ay raadinayaan qofkaas ay wax uga soo qaadi lahaayeen marka waa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa dhibaato hablaha daaya oo habluhu xabartaan hablaha daaya oo iskuulka dadkan ilaahay idiin soo sakhiray abihiina ma hooyadiina ma waxba idinka rabaan kuwa hay'adaha ka shaqeeya wadanka dhexdiisa ka shaqeeya heede kuwa ka baqa qof laakiin iskuul jooga ha ka baqina waayo sharci baa haya isaga caruurtaas oo dhan macruur iimaan leh laga waay macruur waa tiraahdo waxaan way xun yihiin noo dhigina baa laga waay no waba in adag yihiin waliba kuwa Soomaaliland joogayo Soomaaliya jooga caruurta Soomaaliya joogto dhamay laba jirka aqli leh oo wax garanay ha sidan weeye ku iibsanaya baa la yaabay xaka ilmaha wuxuu iimaan ilma yar ahayn adoona soo hadlayo ma sha Allah marka dadka hablaha wax aqli leh iyo wax wanaag soo koray lagama waayini diin cidima barto cidina iskora ma tiraahdo cidina isfuula ma tiraahdo cidina hablaha ma tiraahdo waxaasi waa dacaayad waxaas waa propaganda waxaas waa waxaan waxba ka jirin qofkani dantiisu u socdaa dantiisa ayuu qofkani u socdaa iyo hawshiisa adiguna ka faa'iideyso waxa la yiri wadaad hadaan ku dhaqmin baa diinta isagu soo leeyahay mas'uul cilmigiisa qaadan amalkiisa ha qaadan war amalkooda ha qaadanine cilmiga ka qaata oo ka barta cilmiga dadkan cilmiga ka barta habluuna ha idiin bartaan cilmiga daaya at least caruur generation hadii soo saaraan kulliba waa furaysaane oo waa silcinaysaane de caruur fiican oo ay idoo indhakeedu tahay de ay dhasho oo ay ku koriso tacliinta soo la soo baxdo hooyo waa macallimad tii wax baratayna de kaba sii daran
carruurteeda homeworkna cid uguma baahna barashana cid uguma baahna ilaa ilaah baa hooyad baraye marka carruurtay wax idiin barayaane hablaha daaye oo ka joojiya muraar dilaaca aadna waa idiin salaamayaa dhammaantiin cafiya masaamax dee wixii kale ee iska canaantu waa meesheeda waa cidba iska dayn mayso canaanta ragow waxaa ku fiicantihiin waan soo sheegayaa ragga Soomaaliyeed wuxuu ku fiican wax yar baa ku fiicantiin wax yar baa ku fiicantihiinoo intaan insha Allah gadaal baan ka soo sheegi doonaa waan idin salaamayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa. Hey guys, don't forget to like, subscribe and turn post notifications on, and I'll see you guys next time. Bye.